السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابنا شرفت له ما أنت وحن كورم الدونا كورونا فيروس وحجهاي سيدي لو كلا قادا halkuu ka yimid waxaas oo dhan fadlan barnaamijka la soco ilaa iyo dhamaadkiisa. waa maxay coronavirus? Coronavirus-yadu waa virusyo ka kooban bahwadaag ballaaran oo xanuun ku keeni kara bini'aadamka amba xayawaanka. Cudurka cusub ee coronavirus-ka hadda faafaya wuxuu ka bilowday magaalada Wuhan ee ku taala dalka Shiinaha, waxaana si gaar ah loogu magacaabaa COVID-19. haddaba astaamaha lagu garto qofka xanuunka COVID-19 qaba waxaa ka mid ah calaamado la xiriira dhinaca neefsashada sida qufac iyo neef qaadashada oo ku yaraata. calaamadaha kale cudurkan lagu garto waxaa ka mid ah qandho daran oo qofka qabanaysa. waxa kaloo ka mid ah muruqyo xanuun, qofka oo dareema had iyo jeer muruqyada oo xanuunaya amba meelaha isgoysyada oo xanuunaya. sidoo kale waxaa ka mid ah madax xanuun, riiraxyo ayaa iyaduna ka mid ah. waxa kaloo ka mid ah shuban. haddaba su'aasha dad badan isweydiinayaan ayaa ah siduu ku faafaa cudurka coronavirus? cudurkan waa mid dadku isku gudbin karaan, gaar ahaan haddii ay dadku aad isku dhow yihiin amba ay isku jiraan 6 tallaabo. wuxuu ku faafaa dhibicyo aad u yaryar sida candhuufta amba xaakada oo ka soo baxda habdhiska neefmareenka qofka xanuunsan marka uu qufaco amba hindhiso. dhibcaha yaryari waxa ay dadka kale ee qofka jiran u dhow ka geli karaan afka amba sanka. dadka waaweyn ee xaalado caafimaad oo kale awalba qabay ayaa xanuunkan aad ugu nugul. sidee ayaan iskaga difaaci karaa cudurkan, dadka kalena uga ilaalin karaa? khubarada caafimaadku waxay soo jeediyeen in aad gurigaaga iska joogto haddii aad xanuunsan tahay. xarunta kantaroolka iyo ka hortagga cudurka coronavirus waxay kugula talinaysaa in aad gacmahaaga saabuun iyo biyo ku dhaqdo ilaa 20 ilbiriqsi, gaar ahaan markaad qufacdo, hindhisto amba aad diifsato. ka taxadar in aad u dhawaato dadka xanuunsan. isku day in aadan taabanin wejigaaga. haddii aad dareemto inuu ku soo hayo cudurkan COVID-19 amba coronavirus, u tag dhakhtar amba goobta caafimaad ee kuugu dhow. waxaan ogeysiinayaa in dadka uu cudurku ku dhaco ay arki karaan calaamadihiisa inta u dhaxaysa 2 ilaa 14 maalmood gudahood. iska baadh cudurka haddii aad 14kii maalmood ee lasoo dhaafay aad u safartay mid ka mid ah wadamada uu cudurkan gaaray. maanta casharkeenu halkaasuu ku eegyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.